Halkan waa Labi Busle. Dad iyo dunyaba waxa ay halis ugu jiraan inay biyo la'aan u dhamaadaan. Bulshada halkan ku dhaqan waxa ay ka cabi jireen ceelal, sida ay inoo xaqiijiyeen ceelashii waa ay gureen. Hay'adda waxbarashada iyo horumarinta Al-Raxma oo dhawaanahanba gobolka Gadobiya dhaamin ka waday ayaa maanta booyada biyaha gaarsiisay halkan, inagoo goobjooga ayaa la faarujiyay dhammaan bicihii biyaha loogu shubay. Dadka deegaanka ayaa u mahad celiyay Al-Raxma, waxaana ay ka codsadeen in loo sii wado biyo dhaaminta. Waxaan joognaa maanta deegaanka Labi Busle oo baan aad iyo aad ugu jiray ayaa maanta waxaan soo gaarsiinay biyo dhaamin deeq ay soo direen gabdhaha beesha sade ee jooga Dalmaag, gaar ahaan awf joogo. lacag ay soo direen oo celceliskeeda gaaraysa ilaa 10 booyadood ayaa qaybtii ugu horeysay maanta waxaan soo gaarsiinay Labi Busle oo area balad xaawa ka tirsan. aad iyo aadna oo baan ugu jiro ceelashay ka cabi jireen, ceelashay ay gureen webiga oo u jira ilaa 30 kilomitir wax gaarayo, macnaha ay biyo ugu sokeeyo. xoolihiina hadee ayna baaroori karin, biyaha iyo baadka xoolaha fadhiga lagu siinayo aroor uusan jirin. meeshaas oo dhibaato badan ay ka jirta ayaa deeqdaas gabdhuhu ay soo direen biyo dhaaminta ayaa maanta aan soo gaarsiinay. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ugu bariyaa gabdhaha deeqdaas soo dhiibay ajir iyo xasanaad tira badan in Ilaahay ka siiyo, miisaankooda xasanaadka ee aakhirana Allah ugu kabo. walaalayaal waad arkaysaan baahida meesha ka jirto, xoolaha iyo dadkii labadaba waasho way tuuran yihiin. hadee oonkana waa sidaan gobolka oo dhan baana sidaane, deegaankan kaliya ma aha, goob walba waa sidaas. sida aad ugu diirteen oo walaalihiin ooman oo dhibaataysan aad deeqdaas ugu soo deeqdeen, hadee inaadan ka caajisin inta kalena idinku dayato si ummadda dhibaataysan loo waraabiyo inta Ilaahay raxmadiisa uu ka keenayo. waxaan ku bilaabaa mahadnaq Ilaahay xaggii iyo gabdhaha iyo raggaba nooga keenay meeshaas biyaha annaga oo dhammaanay oo socon waynay oo waayeel uu aroori waayay, adduunyana ay dhammaatay. aniga oo Axmed Dhicis Cali oo 82 jiro aroori waayay biyahina loo keenay. waa mahadsantihiin. bismillaahi raxmaani raxiim. meeshan aan taaganay saakay waa meel la yiraahdo Labi Busle. Ilaahay baa ku mahadsan. waxaa noola keenay wakala Raxma biyo ay waday baa doorka labaad maanta noola keenay. waxaan mahad u celinayaa inta soo jeer oo kun leh wakala Raxma iyo ragga wada. mahad baan u celinayaa. ceelka dheer waaye. ceel uma qodno ragna idinka rag u noqday iyo wakaaladda biyaha noo keentay. waxaan in duceynayaa adduuniya qara inta wax noo soo dhiibtay inta wadaba. Ilaahay waxaan ugu bariyay Allah asuga casiiso casawajal leh jannada inaas Ilaahay ugu bishaareeyo. saantooda faa'iido luuf inaas Ilaahay ugu dhiga. dad iyo dunya waa la ba'ay, haweenaya ilmo waa ba'een. waxa waaya oo rabnaa biyahaas inaan nagala kala gooynin, inaas biyo la mari wayseen wadanka ma ogiye inaad la mari wayseen. abaartaan oo kala 77 dajoomay sablaala ka dambana lama arkin, ka horana aniga taan oo kala ma arkin. Cumar Cabdiraxmaan Sheekh, xafiiska warfaafinta Al-Raxma, gobolka Gedo, magaalada Balad Xaawo.